سلام مدحوينه هو صادم madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu saaka kormeer ku tagay dugsiga tababarka ciidamada ee Darweyne halkaasi oo ay ku sugnaan ciidamada kala duwan ee Soomaaliland iyo dhalinyarada carbiska ee shaqo qaran ciidamadii halkaasi ku sugnaa ayaa waxa ay madaxweynaha hortiisa ku soo bandhigeen gaardis iyo gaada ka ciyaar madaxweyne Biixi oo madasha ka hadlay ayaa waxa uu khudbad iyo dardaaran u jeediyay ciidamadii kala duwanaa ee goobta ku sugnaa waxaana hadaladiisii kamid ahaa dhammaan ciidamada qalabka sida kala duwan ee goobta ku sugan aad iyo aad baan u hambalyeelayaa sharaftooda iyo diyaargarowgooda waxaan si gaara u salaamayaa dhalinyarada ku soo biiraysa ciidamada iyo kuwa qaadanaya shaqada qaran maadaama aynu kulliyad joogno maanta hadalkeena wuxuu badnaan doonaa tababarka iyo macnaha kulliyadda iyo ciidamadu waxay yihiin waxaan si gaara u soo dhaweynayaa oo maanta xusuus badan in dafcadda koowaad ee leyli sarkaal ay yihiin kuwii koowaad ee ka baxaya dalka gudihiisa ku qaadanayo xidigo oo sarkaalnimaha ku gaaraya dalka gudihiisa inay yihiin oo nasiibi hore waa taariikh waan ku hambalyeelaya waxaa intaa u sii dheer waa markii horreysay ee gabdho Soomaaliland ah tiradooda ay badaan 10 gabdhood oo naftooda u soo horay inay qaataan tababar leyli sarkaal oo ciidamada ah oo intii la maray ayaba ayna dhamaysteena aad iyo aad baan u hambalyeelaya waan soo dhaweynayaa ciidan weynaha waxaan ka rabaa iyo saraakiisha guud in hablaha ay ku meel maraan aqoontooda iyo kartidooda ee aan lagu xaglin waa dumar waxaa kaloo soo dhaweynayaa ardayda shaqo qaran oo xanuunkan jira awgood aanay suurtoobin xafladihii lagu soo dhaweyn jiray iyo ka qaybgalkii laga geli jiray shaqadooda oo muddada tababarku ku dhammaatay intii xanuunkani jiray waxaan ku hambalyeynayaa adkaysiga ay u dhabar adeegeen in muddadii 3 bilood ahayd ee ay joogeen aanu qof qori ka soo bixin xididooda iyagoo oo raacaya tilmaamaha caafimaadka waxaa ka muuqata inay yihiin aqoonyahan qaadanaya tababar ciidan iyagana aad iyo aad baan soo dhaweynayaa waxaan ku hambalyeynayaa tababarkiinii hadda inuu gabagaba yahay oo bishan May markay dhammaato ta kale awalkeeda la idin xidhi doono iyagana taasaan ku soo dhaweynaya intaa hordhaca markaan dhaafo halkan maanta aynu joognaa waa xero askari waana meel askarta lagu tababaro kooda aliflaha iyo sarkaalkooda iyo shaqo qaran waxaanay koobsatay dhammaan shaqadii la odhan jiray askarnimada maanta ciidamadii loo leeyihiin iyo taliyaashoodii booliis taliyada asluubta kii xeebaha askarinimo dadku rayaal badan bay kala haystaa askarinimo caalamiyan iyo inaguwa markii aynu sharaxnay waxaa la isku raacay inuu askarnimadu tahay kelmaddaas horta ereyga askari marka hore waa urdu oo waxay noo kale markii ay baadeen isticmaal ayuu nagu soo biiray malaha turkina uu kasii horreeyay inuu ereyga lahaa haddaba askarinimo aynu qaadanaynaa oo ah fikrad ama mabda askarinimo sida ay ula mid tahay macallinnimo dhakhtarnimo looyarnimo waa shaqo shaqooyinkaasi dalka waxay u qabtaan iyo ummadda shaqooyin kala gaara oo dhammaan ummaddu u baahan tahay mid waliba wuxuu leeyahay madaantiisa macnaha ay ku soo hortay caalamada iyo inagu askarnimadu waxa weeye askari marka hore wuxuu koobsadaa 3 arrimood oo tirada ta koowaad waa dal jacayl askari inuu haddaad qaatay dadka kaloo dhan waa inaad buntaan dalka ka jeceshaad u dhex jeclarootay 2 waa geesinimo iyo ciduna waa geesi dhakhtarku yahay maanta xanuunkaasi laga baqayo dhakhtarku laabtuu dhigayaa qofkii cudurkaa fiiray uu bareeraya macallinku waa geesinimo oo jahal uu dagaalamaya oo dhibaato wuxuu marayaa inuu dadkiis ka saaro aqoon darrada laakiin askariga maxaa u dheer waa geesinimo iyo naf horid wada socda
askarigu geesinimada wuxuu ku darayaa naftiisa wuxuu u warayaa inay inta kala badbaado markaa waa tiirka labaad tiirka saddexaad waa xilgudasho sida u kala culus yihiin xilku oo xilgudasha maxay tahay askarigu ama janar ha ahaado ama dabla ha ahaado naftiisa wuxuu u warayaa saaxiibkiisa dagaalka kula jira inuu badbaadiyo askarnimada waxa weeye ka ku garab socda ee ciidanka gudaha ee xurintaada ah inuu nin waliba kan kale kala badbaadi uu kan kale isu dhigaa isugu dabka saddexdaa tiir ayuu askarigu ku soo ururayaa tiir uu taagan yahay oo mid walba ay ka farcamayso buugaag badan iyo duruus badan iyo aqoon badan oo fara badan oo keenta oo antii la dhimanayo sarkaalo maxaa tahay askari haddana sarkaalnimo layli sarkaal maxaa loo leeyahay sarkaalo maxaa tahay shaqo qaran waa sarkaal waa aqoonyahan jaamacad u dhameeyey aqoonteedu buu leeyahay maxaa loo soo xireeyey ee xerada loo keenay iyana waa su-aal kale waa sarkaalnimo inaad labadiiba isu hayso aqoontii iyo sarkaalnimadii sarkaalkuna waxa weeye intii askariga lagu sheegay saddexdii tiir oo lagu daray go-aan qaadasho iyo hogaamin intii askariga marka loogu daro go-aan qaadasho iyo hogaamin ayuu sarkaal noqonaya haddaba maxaa lagu barataa kuliyaddan iyo kuliyadaha lamidka ah layli sarkaalka waxaa la barayaa oo koow ka ah qodobo fara badan oo ay ka mid tahay casharada ay ka mid tahay iyo shaqo qaran oo socdo ah shaqada oo dhisana baraxay dhismaha jirka iyo maskaxda labadaba in laga dhiso laba in la baro xakamaynta naftiisa xaaladaha kala duwan bini aadamku xaalado kala duwan buu maraa wuu caroodaa wuu gaajoodaa wuu bukoodaa wuu farxaa adduunya wax u helaayo marmarka qaarkood waa kibraa waxa weeye waxaa lagu barayaa xakamaynta naftaada xaaladaha kala duwan si aad u hoggaamso dadka marka ay jiraan xaaladaha kala duwan waxaa la barayaa oo duruusta ay barteen ka mid kaaga lagu bartaa inaad u rogto dhaliishaada marka aad qaldanto qof kasta wuu qaldamaa bini aadmi baynu nahay ma jiro qof toosan kolkaa marka uu qaldamo ninka askariga ah waxaa loo tababaraa inuu qaladkiisa u rogo guul ereyada ka mid ah afafka askarta oo dhan adduunka waxaa ka mid diiba gurasho xeer dagaaleed retreatment oo ah khalad baa dhacay cadowgii waxbu ah ama afrad ku keenay waa inaad ku dadaashaa inaad qaladkaa u rogto saxiib iyo guul inaad ku gaadho waxaa kale oo halkan lagu tababaraa askarta saraakiisha halka waxaa laga qaataa in guusha aad gaadha aanad ka qaadin faan iyo istustus ee guusha aad gaadhaa aada u aragta inay tahay waajib aada waatay oo aanad u baahdan in laguga ammaano iyo inaad ku kibirto midna askarnimada waxaa laga kororsadaa dal iyo dad aqoon waayo dalka oo dhan baa u siman nooc dadka o dhanna way iska yimaadaan dalka oo dhan markaa dad iyo dad aqoonna waa iska koray intaasoo dhan waxaa lagu tababarayaa inaad hubiso difaaca dalka iyo inaad ka guulaysto cadowkaa soo horjeeda intaa waxaa u dheh oo ciidamadana si gaar loogu tababaraa xaqdhowridda shacabka iyo noloshooda iyo hantidooda xallinta khilaafyada iyo dhisidda nabadda si loo gaadho horumar dhinac walba horumar dhaqaalena gaari maayo haddaana askarigu nabadda xasilin oo aanu dhisin oo aanu dhibada u taagin horumar guud la gaari maayo ugu dambayn halkan waxaa lagu bartaa higsiga berrinta somalilan tan maanta ka wanaagsan iyada oo aan la iloobeyn wixii shalay dhacay haddaad raadiso uun berrinta oo wacan oo waxyaalaha qaarkood aada laacdo hirarka laacaad iska laacdo adoo iloobay wixii shalay ku soo maray iyo wixii dhacay khalad baad gelaysaa markaa waxaa lagu tababaraa halkan qofku inuu horumarka noloshana higsado isla markaana uu og yahay wixii soo dhacay shalay uu labada isku xidho markaasuu noqon karaa sarkaal markaasuu noqon karaa askari markaasuu noqon karaa muwaadin dalkiisa iyo dadkiisa
anfaca oo waxa loo qabta ilaa uu dhiig casku saxeexo horumarka dalkiisa shaqo qaran inta aan soo sheegay waa la idin dulxaadiyaa dulxaadis baa ku barataa waayo waxaa la idiin tirinayaa shaqo qaran marka hore inaad dad aqoon la tihiin maskaxdoodu ballaaran tahay u baahan inaad fahamtaan ama aada guudmar ku samaysaan habdhaqanka iyo sida askartu iyo askarnimada loogu shaqeeyo oo aad ku tala gashaan marka la idiin baahdo dalkiina inaad la mid noqoto sarkaalkii aad kukalaaska ahaydeen ee isagu qaatay inuu noqdo militariga inaad la mid noqoto waxa kale oo ka faa'iido tahay shaqo qaran oo adduunka oo dhan ma sameeya waynu ognahay oo dalkeenu baryaha dambe duruufaha jira dhaqaalaha awgeed qof waliba deegaankiisa ku nool ma jirto shaqooyin iyo warshado waaweyn oo dadkaas ku dhex gala ma jiro bulshada dhex gasha oo inta badan is soo gaadha in yar mooyaan markaa markuu qofkii ardayga ahaa wiil iyo gabarba uu magaaladii uu ku dhashay ka galay elementariga ka dhameeyey iskuulka dhexe uu ku dhameeyey secondariga haddana uu jaamacaddii ku dhameeyey uu qof weyn yahay oo laga yaabo inuu reeriyo carruur yeesho laga yaabo inaan deegaankiisii dhaafin waa dhibaato inteeda leeg markaa shaqo qaran muddada yar la isugu keenay waxa kow ka ah inaad isdhex gashaan inaad isbarataan inaad fikirkiina iyo sidaa wax u wadi lahaydeen isla fahamtaan waayo maxaa la isu kiin barayaa maxaa la isu kiin darayaa haddii aan la yidhaahdo muddo dhow oo berrita ah waxaa noqonaysaa madaxdii dalkan waxaa noqonaysaa madaxweynihii iyo wasiiradii iyo dhakhaatiirtii iyo safiiradii iyo looyradii iyo tujaartii iyo qaarkiin sanaadina noqon laga yaaba iyo culimada waxaa noqonaysaa dadkii berrinta dalkan u talinayay markaa waxaa lagu dadaalayaa idinkoo is yaqaana oo hebel iyo hebel isu garanaya oo doodi kara oo dal hogaamin kara oo iswada yaqaana oo deegaan walba garanaya inaad berrinta noqotaan madaxdii dalka oo hubaana wixii nool inaad noqonaysaan berrinta dayartiinani kuwa dalka hogaaminaya shalay unbay ahayd annaguba markii aynu odhan jireen madaxdii dalkan soo hogaaminaysay oo ugu dambeeyey maxamed xaajigaan xigaal oo aan garanayo dhowr iyo lixdankiisa oo prime minister uu noogu yimid iskuulka markuu noogu yimid dayartii berrinta dalkan xukuumadda noqonaysay dhammaantay waxaa ninkii gaaraba waxaa kamid a dhammaan madaxweyneyaasha halka soo maray shalay bay dhalinyaro wada ahaay iyo intaa garanaysaan oo dhan waxaa laydinka rabaa shaqo qaran laydin sarkaan da-yarta oo dhan inaad isu diyaarisaan maskaxdiina ka ballaarisaan dhalinimada iyo duruufaha gaarka imka haysta ee laga yaabo dhaqaale iyo shaqo oo dalka dhibaata ka jirta ogahay haddana qaarka adag baa soo maray inaad isu diyaarisaan inaad madaxdii qaranka tihiin weliba shaqo qaran waxaa ku dadaaraya inay noqoto koorska yara gasheen mid dalka mustaqbalka anfaca ugu yaraan dad soo maray wax soo bartay marsa soo arkay og waxa dalka ka soo dhacay og waxa la higsanayo goobjoog u ahaa oo dhageystay madaxda maanta wixii ay ku dardaarantay iyo waxay hayaan intaa waxaa dhaafay ciidanka booliiska horta booliiska waxaa balyanaya shaqooyin wanaagsan oo aad iyo aada u hawl badan ay dalka ka hayaan soomaalidu mahmaha bay sheegtay marka reerku guuro ee la dego ama geelu jira yahay geela xerada loo oodayo laba nin baa ooda garaaca mid wuu garaacaa midna ooda wuu soo guraa reerku ku ooda mahmaha baa halkaa ka soo baxdo waxaa la yidhi garaaciya gure guraa hawl badan ka ooda jiidaa hawl badan oo culays ku dhacaya wadaxda xaganaysa garaacaasa isbida laakiin ninka reerka ooda waa ninkii ooda garaacay ayuunbaa yeeshay horta waxaan idiin sheegayaa buriisku waa jiidihii waa gurigii hawsha ku dhacda ciidamada kale kuma dhacdo 24 saacadood oo ciidan dagaal ku jireen mar walba aroor galab habeen yani hawsha waa ciidanka qura ee adoonaysa war dagaalka meel mar qura joogsanay ciidanka waxaynu ku amriyeenaa hawsha culus ee ay u hayaan dalka khaasatan magaalooyinka waaweyn gudahooda oo ay ka haystaan dhibaato badan oo ah